السلام عليكم يا أصحابتي قالق بدن وولاشين سمية وإلهي درتيسني جعل isku soo noqod wanaagsan ayaan ii leeyahay maya asxaabteyda qaaliga badan ee horta aan ku salino salligee nabigeena maxamed ibnu cabdullaahi ibnu cabdimudallib ibnu haashim sala allahu calayhi wasalam maya asxaabteyda qaaliga badan salliga nabiga waxyaalo badan ayaa lagu helaa waa lagu arwaaxaa waa lagu degaa waa lagu nasahaa alxamdulilah aan badino maalinta kun mar aan salina salliga nabigeena sala allahu calayhi wasalam faraj badan ayaa lagu helaa maasha allah alxamdulilah isku soo noqod wanaagsan maanta walaashiina sumayo maxay nii haysaa wixii hore laga soo tag maa asxaabteyda qaaliga badan waa ogtiin walaashiina waxaa ugu barteen waxyaalo qaali ah ee ahaata toobinta ha ahaata salliga nabigeena sala allahu calayhi wasalam ha ahaata ducooyinka ee ha ahaato maxaa la dhihi jira muruqsaarka wax kasta oo faa'iidooyin ah walaashiina waa nii haysaa because ilaahay dartiis ayaan ii jeclahay maay asxaabteyda qaaliga badan isku soo noqod wanaagsan ayaan nii leeyahay maanta waxaan ka wada hadlaynaa waxay tahay hooyooyinkeena ama aabooyinkeena waayeelaha ah oo qabaan jilba xanuunka waa ogtihiin maay asxaabteyda qaaliga badan jilbaha horta hadday noqoto xanuun ama dhiig fadhiyo ama qofka uu ka kici waayo ama wax ka murtuq oo kale aa ka dareentid intaa gacanta saartid oo murtuq aa ka dareentid maay asxaabteyda qaaliga badan toobin ayaa loo sameeyaa waa ogtiin toobinta waa sunnada nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa inaan ku dadaalnaa maay asxaabteyda qaaliga badan ka sokow qofka hadduuna toobinta intuu sameeyey jilbaha ama macnaha kalshaalka uu ka dhammaado ama jilbaha maxaa la jira dhareerka jilbaha macala isha agteeda hadduu dhammaado jilbahaas waa ogtiin way dhib badan yihiin maay asxaabteyda qaaliga badan qofka ma socon karo lafaha ayaa is cunayaan markuu dhareerka ka dhammaado jilbaha waa ogtihiin daktar kuley waa ka maqasheena umalaynaa maaya asxaabteyda qaaliga badan maanta marka maxaa nii hayaa walaashiina sumeeyo waa yeelaheena soomaaliyeed ama aabooyinkeena soomaaliyeed waayeelaha noqday ama hooyoyinkeena soomaaliyeed qaaliga badana waayeelaha noqday oo jilbaha dhareerka ka dhammaaday dad baa waxay isticmaalaan baamiyaha waa ogtiin baamiyaha wax badan uu u fiican yahay laakiin maanta baamiyaha sheekada ma taagno waxaan taagan wax kale oo dhareerka jilbaha soo celinaayo waa ogtiin dhareerka jilbaha hadduu dhammaado maayo asxaabteyda qaaliga badan lafaha ayaa is cunayaan qofka wuu isjibin karaa dhenjaraas waayo waa ogtihiin maayo asxaabteyda qaaliga badan lafaha hadday isxoqaan waa stress ii soo dhawaada marka walaashiina sumeeye maanta maxay nii haysaa faa'iidooyin badan haddaa leeda hooyo jilba xanuunaya ama hooyo dhareerka ka dhammaaday maayo asxaabteyda qaaliga badan walaashiina sumeeye waxay nii haysaa waxyaalo qaaliga badan oo maasha allah jilbaha u fiican ama dhareerka u fiican ama macnaha jilbihii dhareerka ka dhammaada oo kale maxaa waaye waa xabag dee qofki yaqaano maayo asxaabteyda qaaliga badan dadka looxa kusoo qorin jiri ama looxa kusoo barto aniga aan ka koowahay xabagta waa naqaanaa waxaan u isticmaalni jirnin hinqaasta waa ogtiin maayo asxaabteyda qaaliga badan xabagta waxaa loo isticmaalaa hinqaas ha isdhihina maanta sumeeye maanta xabagay noo keentay xabagta hinqaasta loo isticmaali jira ayaa noo keentay hinqaasta waa ogtihiin markii xabagta lagu sameeyo iyo hinqaasta kale aana xabagta lagu sameynin isku qurux maaha isku macaan ma aha isku qoraal maaha waa ogtiin maayo asxaabteyda qaaliga badan dadka looxyada kusoo barin jira qur-aanka ayaan ka hadlayaa oo isticmaali jira qadda marka qadda ayaa loo isticmaali jira xabagta waa ogtihiin waa kana maasha allah qadda markii xabagta loo isticmaalo qaddaas waxay noqon jirtay dhakruur ama waxay noqon jirtay saako qofka yaqaano maxaa la dhihi jira ama dhakruur aad u dhakruur oo qadda marka looxa ah ku qoraysa farta aaday u qurux badnaan jirtay maasha allah maaya asxaabteyda qaaliga badan isla xabagteena aan u isticmaali jirna looxa ayaa maanta waxaa loo isticmaalayaa jilba xanuunka ama jilbaha dhareerka ka dhammaada maaya asxaabteyda qaaliga badan inta yaqaana ayaa taqaano xabagta faa'iide u leedahay xagga caafimaadka awal waxaa loo isticmaali jiray qadda qofki yaqaano ama hinqaas ama qad ama hinqaas qofki yaqaano ayaa yaqaano dadka looxa kusoo bartay aniga koowa ahay waa ogtihiin awal soomaali markaan joogno looxaa la isticmaali jiray hadda sheekada way isbedeshay loox ma jiro buugaagaa la isticmaalaa laakiin aniga looxa dadka wax kusoo bartaahay maay asxaabteyda qaaliga badan ii soo dhawaada marka xabagta waxaan u isticmaali jiray qadda ama hinqaasta sida u taqaano marba saa u taqaanid waa ogtihiin qadda markii xabagta lagu rido ama hinqaasta lagu rido oo macnaha intaa macnaha dhuxusha ama riiqdid macnaha koomba ah ku shubtid qadda ama hinqaasta taa u taqaanaanbo
waxaa lagu ridi jiray jab yar oo xabag ah intaa la eg oo xabag ah qofkii yaqaano hinqaastaas ama qadda si qurux badan ayay kugu qoraysaa dhiinkay noqonaysaa dhikruuray noqonaysaa qofkii yaqaano maayo asxaabteyda qaaliga badan isla xabagtaas ayay nihaysaa walaashiina Sumeeya maanta maxaa loo isticmaalaa maxay u fiican tahay xabagta waa ogtiin ilaahana siiyey alxamdulilah waa dhirgeedaha ka baxdo alxamdulilah shukr rabbil caalamiin waa kaasaasay tahay way kala tahay xabag caddeetu la dhahaa jirta waatana iyadoo xabag caddeena waatana xabag guduude iyadana waatana maasha allah xabag madow waa jirto maay asxaabteyda qaaliga badan marka haddaa leedahay walaalkee ama walaashee haddee hooyada ama aabbaha ama ayeedaa leedahay ama adiga nafsadaada naftigeeda aad leedahay jilbaha dhareerka ayaa iga dhammaaday oo jilbahayga waxaa la dhahay lafiha ayaa isxoqaayaan dhareerkii wax kastaa sameeyey dhareerka wuu soo noqon laayahay waxaa isticmaalaysaa xabagtaas qaabkee u isticmaalay marka maay asxaabteyda qaaliga badan waxaa loo isticmaalayaa biyaha adi isticmaashid ama ha ahaato biyo ashuun ku jiro dee dadka Soomaali dadka wixii hore maanta soo xasuusinayo yani maasha allah ama ha ahaato biyo ashuun ku jiro ama ha ahaato biyo shanlo ku jiro ama ha ahaato biyo inta adig karkarsato qaas ku ah ama ha ahaato biyo shanle inta soo gadato biyahan sajalaysan oo kale soo gadatay oo kale Kilimanjaro ma dhahday ana Kilimanjaro dhahna umaleena ha ahaato biyahaas oo kale waxa ku darsanaysaa jab yar oo xabag ah tan waa kala goosanay saasa u kala gooynay jab yar oo xabag ah waxa ku dhex darsanaysaa biyahaada xabagtaas liirta inay gaartana lama rabo ama dabeel gaarto ama dabeel marto sida u taqaanaanbo meel fiican ama baca ku xiraysaa meel fiican aad dhiganaysaa because haddee dabeel gaarto dhareerka ayaa wax gaarayo dhareerka xabagta ay leedahay wax gaarayo marka nahda iyo nuhda ka tagaysaa marka maay asxaabteyda qaaliga badan xabagtaas ay isticmaalno dadka dhareerka oo ka dhamaada jilbaha ayaa maanta sheekada u wadaa ama xusulaha adi meel kasta oo la laabato maxaa dhihi jiray dhareerka ku jiro dadka ka dhamaada ayaa anficaysaa maay asxaabteyda qaaliga badan aan fiirina aan tijaabin anigu waan tijaabiyey ana hadda hooyadey ayaa saas oo kale jilbaha u xanuunaan markasto meel kastaan geeyey waxaa laleeyahay dhareerkaasaa ka dhamaada dhareerkaasaa ka qaba qof iska waayeel waxba saas u cunayn waa dareemi karteen qofka markuu waayeel yahay wallahi xabagtaas ayaa shanla biyo ugu riday alxamdulilah waxyaalo badan ayaan kaga faa'iiday shanlaha biyaha markaa ku rigtid hal xabag ama hadday xabagtu weynta oo kale tan oo kale hadda okay waaye hadday saan oo kale u weynta oo kale jabaa kala goynaysaa maaya asxaabteyda qaaliga badan marka aa ku ridid dhareeraad dareemaysaa wax kasta koob biyo oo xabag ah ayaa cabaysaa maasha allah wax badanaa iskiga dareemaysaa 2 wiig oo kale qofka waa inuu wadaa haddii kale uu ka badsadaa hadduu noloshiisa inta ka dambana uu wado waxba dhibaato uma keenaysa waa xabagteena Soomaaliya waa xabagti aan ku qasan jirnay qadda ama xinqaasta waxa u taqaanaanbo maay asxaabteyda qaaliga badan ii soo dhawaada waatana walaashiina Sumeeya wax kastoo faa'iido ah musey adeerkee oo wiil musey kaloo saaxiibkiisa ah oo toobin aan u sameynaya wuxuu ugu dhahay adeero istaal kasta markaan taga markasta waxaa lii leeyahay waxaa kaa dhammaaday dhareerka jilbaha adeero maxaa sameeya Sumeeyo daas waayo wuxuu dhahay barnaamijkaada waan fiirsadaa kusoo dar waa musey waayeel ogow hadde kusoo dar maxaa la dhihi jiray waxa oo u fiican waxaa laga yaabaa odayaal kale oo aniga oo kale inay saas oo kale jilbaha u xanuunaa ama dhareerka ka dhammaado marka Sumeeyo kusoo dar ugu dhahay xabagtaas macnaha waxay faa'iido u tahay jilbaha ama dhareerka jilbaha ka dhamaado oo kale marka daas waaya maay asxaabteyda qaaliga badan maadaama asiga aan ku caabiyey aan ula sheergalay aninkana waxaan go'aansaday inaan ila sheergalay maadaama atiin maay asxaabteyda qaaliga badan xabagtaas waa kaas shanla biyo ah ama maxaa la dhihi jiray anshuun waxa u taqaanadbo ayaa ku dhex darsanaysaa halka xabo iga dhacay dhib mala dhulku iga dhacay saddexdan xabaan ii faa'iideysanaa maasha allah xabagtaas maxaa la dhihi jiray ayaa waxaa ku daraysaa shanla biyo ah shanlahaas biyaha ah ama ashuun ama biyaha qaaska adag ku ah jab xabag ah hadday xabagtu weyn tahay hadday xabagtu yar tahay waa iskaga dhex darsanaysaa biyaha ku dhex darsanaysaa habeenkii dhammaan way ku lidmaysaa subaxdaa la siida hadday dhareer noqoto taa shaqadaada ma adig hal galaasoo biyaha noocaas ah aa la rabaa inaa ka cabto subax kasto maaya asxaabteyda qaaliga badan weliba adigoo afkaada qaba maasha allah maaya asxaabteyda qaaliga badan hadda soo dhawaada walaalihiina ilaahay dartiisa ayaan ii jeclay walaalihii qaaliga ah waa walaashiina Sumeeyo oo Maxamed oo mar labaad nii faa'iideynayso xabagta waxay u leedahay xagga caafimaadka jilbaha marka maay asxaabteyda qaaliga badan ii soo dhawaada inta nagu cusub waxaan leenahay noo soo dhawaada furo gambaleelka subscribe-ka saar leegta sheerta
وحقينا ما أصحابتي إذا قالي بدن inta nagu hore noola joogtan waxaan leenahay noola sii jooga hanaga caajisina sheerta noo sii taabta maxaa la dhihi jira leegta noo sii taabta dhiirigelinta waa xaggiina hadda waa arkaya labadan beri asxaabta way soo badanaysaa maasha allah ilaahanii barakeeyo allahanii xafido maadaama codsigeyga ayaga aqbasheen maasha allah ilaahay maxaa la dhihi jiray ilaahay wax barakeysan hanii siiye insha allah adduun iyo aakhir ilaahanii sharfo maadaama aan labadan beri ii dhiirigeliseen oo kumaday si qurux badan ay ugu qortaan maxaa la dhihi jiray oo si fiican oo macnaha sheerta ay ugu taabateen samskaraabta ay ugu caabiseen ilaahanii barakeeyo allahanii xafidaan leeyahay soomaaliyeed ascaabina insha allah biidnillaahi baari inta xanuunsan ilaahay xanuunka ha ka dulqaado inta caafimaad qabtan allah u ziyaadiyo ma asxaabteeda qaaliga badan waa xabagteena soomaaliya waa taas hadda hinqaasta ama qadda wixii loo yaqaan dadka yaqaan hinqaas ani hinqaasna u aqaana qadna waa u aqaana maasha allah oo walaashiin sameeye oo mar labaadna isoo laabatay haye hadda assalaamu calaykum isku soo noqod wanaagsan ii soo dhawaada maaya asxaabteyda qaaliga badan aa ilaahay u jeclahay assalaamu calaykum